doonaa qormadeena tan ku xigta alle idinkii sidaasi ayaana qodob ugu soo sharxi doonaa ilaa aan ka dhammeeno heshiiska oo dhan ayay ku soo idlayeen ardaydii Soomaaliyeed ee jaamacadaha Ingiriiska wax ka dhigta iyagoona baaritaano dheeraad ah ku wada shirkadani. وهجر haddaba warbixintaasi waxaa diyaariyay oo dabagal ku sameeyay sawirana ka soo qaaday shirkadaasi iyo waxqabadkeeda iyo waxa waddanka Soomaaliya u joogto dhalinyaro ay ka mid yihiin Jamaal Qaasim Mursal iyo Axmed Macalin Xasan oo waddanka Ingiriiska jaamacada ku dhigta qadka taleefanka ayaan caaw ku wacay waxaana wax ka weydiiyay warbixintooda iyo waxyaabaha la xiriiray sida u heleen. bismillah walaal horta shirkadan waa shirkad ka mid ah shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay waxay ka howlgashaa waddanka Ciraaq waddanka Afghanistan Soomaaliya oo ay hadda shaqo ka bilowday sida caadiga shaqadeedu waxay ku dhisan tahay wadamada dhibaatada ka jirta inay ka shaqeyso oo keliya waddan aan dhibaato ka jirin kama shaqeyso shirkadan waxaa si mudan shirkadan ragga mulkiyadeeda leh waa rag ka mid ah ciidamadii hore ee militariga ee waddanka Ingiriiska iyo waddanka Mareykanka ragga shaqaalaha u ahna badankoodu waxay ka soo qaateen waddanka la yidhaahdo Fiji marka shirkadani doon ay hore ula wareegtay oo ay si caadi ula wareegtay oo aan ka ahayn garoobka Muqdisho ma jiro ilaa haddana waxay ka howlgashaa sida aan hore ugu sheegay waddanka Ciraaq iyo waddanka Afghanistan marka waxayna ka rajistar garaysan tahay waddanka la yidhaahdo Dubai oo uu heshiisku qorayo in heshiiskanba uu hortagayo sharciga Dubai ee uusan hortigin sharciga Soomaaliya waxay kala samaysaa shidaalka way ka ganacsataa waxaa kaloo ka ganacsataa shirkadaha ammaanka ayay ka mid tahay oo security waxa la yidhaha samaysaa. Axmedow dabcan warbixintan aad qorteen ee ku aadan waaqiciga rasmiga ah ee shirkadan xog badan ayaa ku jirta marka si loo eego qaabka aad u hesheen iyo sida ay idinku sahlanaatay nooga sheekeen. walaal horta waa sheeko aad u dheer waqtiga ugu yaraa waan soo qabanayaa horta anaga waxaan nahay arday jaamacad wax ka dhigta waxaan hadda sanadka lagu dadeeya wadnaa management and business research waxa la yidhaha oo baaritaanka ganacsiga basically ku saabsan marka annagoo baaritaan maalin samaysanayna oo British Library joogna ayaan baaritaankeeni waxaa loo baxday in shirkad private ay la wareegtay garoobkii Muqdisho marka halkaas ayaan horta ka ogaana markii noogu horeysay kadib waxaa loo suurta gashay in television kamid ah telefishinada Soomaalida ee waddanka Ingiriiska uu isagoo arrinta baaritaankuwada isagana uu nacasuumay aan tagnay telefishinkii marka waqti fiican maynaan helin researchkeena ama baaritaankeena uu ku saabsan yahay keliya waxyaabihii aan library ka helnay oo keliya uu ku saabsan yahay laakiin markii aan telefishinka ka hadalnay wixii ka dambeeyey waxaa nagu soo dhacayay macluumaad fara badan waxaa noo suurta gashay inaan helno rag ka dhageystay Soomaaliya telefishinka warbixintii aan ka jiidayna ka dhageystay in ay noo soo direen heshiiskii dowladda iyo kaagaleed iyo shirkadda marka marxalada arrinkaas ay soo martay waa taariikh aad u dheer oo runtii mudan in waqti gaar la siiyo oo laga sheekeeyo waxyaabo badan oo caqabadaha la kulanay iyagana insha allahu tacaala waqtigooda ayaan ka sheekeyn doonaa haddii la yidhaah. heshiiska oo original ayaad hesheen sidaasaan u fahmay. waa sidaa inaad waa tahay Axmed waan kugu soo laaban doonaa bal Jamaal igu dhiib. wala maqlaya haye Jamaal waxaad adiguna bal ka warantaa shirkadan SKA ee garoonka la wareegtay mustaqbalka soo aadan oo kale waxyaabaha iyadu ay ka faa'iidi karto marka hore maxay tahay magaalada Muqdisho hadda ay ka shaqeynayso faa'iido ugu jirto maxay tahay inay ka howlgasho. shirkadani waxay doorbiday inay ka shaqeyso wadamada dhibaatada ka jirto sida Iraq iyo Afghanistan iyo Soomaaliya oo hadda ay ka shaqeyso oo dowladda ay dilayeen hadaba su'aal fiican waxa ah sidee wadamada kale u shaqeysaa Soomaaliya ma lagu baarigayn karaa ma lagu dabaqi karaa heshiisyada ay kala gashay iyo hawsha ka qabato Iraq iyo Afghanistan waa maya sababta Iraq waxa jooga adduunkooda ayaa isugu tegay waxa joogo ciidamadii Mareykanka joogay macnaha hawsha ay qabanaysay waxay ahayd wax la yidhahdo logistics oo wadada ay markii wadooyinkii la mari waayey oo ciidamada Mareykanku ay dib ku noqotay logisticskooda dib ku noqotay ayaa shirkadan ay timid maadaama shirkad ama shaqaalayaal ay tahay ayada ayaa halkii wixii la wareegtay
si loo yareeyo dhimashada askarta maraykanka tan kale afghanistan sidaas oo kale marka su-aasha isweydiinta le waxay tahay soomaaliya ma ka jirtaa baahi noocaasa waa maya marka horta waa identitygii wadankeena oo dhan wadanka ayaa iskale macnaha waxyaabaha qaar si sahan ah oo transportation ama shirkad ajnabi loogu wareejin karo waa ka duwan yahay wada garoonka soomaaliya waqtigan wacyiga hadda la joogo kulley marka aan sharciyada iyo contractiga aan gurin galno ayaan si fiican uga sheekayn doonaa waxaa kaloo muhiima in la ogaado nimankani si maadaama ay yihiin shirkad private ah wadamada ujeedada laga shaqeynaysa waxay ahayd si loo yareeyo nimankani ma qabana sharciyada caalamiga ma qabanayo maadaama shirkada iska private tahay manaha wadan oo dhibaatadii ay geystaan waxay dhibaato dhaca manaha meel loo raacanayo ma jirto taas taasna waxay sababta ay uga shaqeynayeen ciraaq iyo afghanistan laakiin soomaaliya waxay isweydiintu tahay ma loo baahan yahay tan kale waxay tahay contractka waxaa siinayay ma ahayn dawlad ma ahayn dawladda ciraaq ma siinin dawladda afghanistan ma siinin waxaa siinayay shirkadaha manaha dawladda ciidamada maraykanka ayaa siinayay haddaan dib ugu noqdo taariikhda 1993 markii ciidamadii unisom ay joogeen soomaaliya waxaabay ku jirta tuuna in shirkadaanu ayba tahay shirkad hadda kor ka shaqayn jirtay soomaaliya waktigii oo united nations ay joogeen shirkadaas waxay ka shaqayn jirtay dhinaca asijeenayay xarun ku lahayd logistic ay bixin jirtay ciidamada ayay contract ka qaadan jirtay dhowr mayr ayay waxay isku dayeen inay xataa la wareegaan civilizationka soomaaliya inay la wareegaan shaqadii hawada soomaaliya laakiin way suurtagal weyday sababtoo ah international civilizationka ay ka ayaa kula soo dirtay ayagay ayaana sidii hawshii kula wareegay marka waxaan uga sheekanahay maadaama waqtigaas ay ku dhigi jirtay hadalaamay uun u arkay fursada in hadda mar kale ay garoonka la wareegi karto taas ayaan oo aaminsanahay marka waxay kalan waa tahay jamaalow bal waxaad ka warantaa faa'iidada shirkadan ay u keeni karto wadanka soomaaliya iyo khasaaraha laga filan karayo shirkadan وماذا تعرف سؤال عن طبعا نقل قاعدة وعن نقل قاعدة إنها فإذا بدو الشركة اليوكي اللي كانت براسها هي إن قطعنا الشيء اللي كانت فإذا الشيء اللي كانت الشركة هو حيث هاي أطوى الشركة أول ديما ومحايد إن اتفاق السلام اللي واحد كسوة شغيت روحها تعرف عن كسوة الشيء لكن وحيلا هاي شركة أول له بيعرضي لها إليهم أنا كنت لنا إليهم أنا الشقة أي قبل أيام ويا أولا إنك كبحان ذاتي تلقيت يوتفي أو كتب مركزتي استعمال يكرونك في الزيارة هي شقالي إذا أي كاتنجركي أو هكاركي ذا إلي أبيك جدّقرة وصلنا هلان مرتوجع كذا يا ما كان كثير إنه ومحاهي إن خسارة يكيني كتب حيثنا صوماليا ما أنت شركة فائدة أنا نقدر هذا نيسا ورتجد كنيرة وحكلام رحلة موضوع أنا هيوا الدائرة المشكلة أنا مثلا هاي بعدين ما كان تلاقي إن دائرة أي تنجي فقط الصومالية أنا وقت شغالين إن إلى وقت جي إن دولة دي دحنا في دمار إلى يوم هذا كان يوجد جزء وأنا شغالين الصومالية كرام كذا ولا قدولا هي إن ديارة استعمال هي هذا استعمال كرام كويت هاي استعمال كرام مديرية إن شغلوا وقت تنجي إن وين دول جران كذي لو تلقى أي مشكلة وصعتي وحدياتها ما قبل هذا كان ونبنا هاي واجي محكمة الإجراء ترى كصوماليا أي مقدسه نبدي مثل الذين أي تسعة نوادي هاي وين طلبية دولتي عبد الله يسوع سواء طلبي كنت أصلي خطأنا عن كابل نمط خطأنا هاي تاي أنا أنا بواقبنا إلى هاي شكرا لي أي وحقبنا كرا حتى صوماليا يا قبنا كرا إن وحقبنا كرا قرب ولا تقرب الذي هدي جلده قرب ولا ترجع كرا قرب هدي حتى أي جلده أي تكسر الآن فقال الله تذكر التذكرة وقال ثلاثة ترجع إن أو مرتفع بالوضع العقل فيه كذا هذه قرب في شغالين صوماليين إن ثلاثة ترى إلى قال في كل شغالين كرا برامر إن عدد في رسيب ذكر العالم كا ما تبرامر وين وقال كنت ولا عروية وطبعا إن وحكينا أيام وعلى قرش كذا قصة جاية بدل أيام أي حتى دليل يا بدنا وديارين إنسان because of قلق بدن أي سلاح عن كارنا بود ما دعوه مري لك ما أنت أنا إن وطن حتى سلاح كتير أو نقدر نستكيري وحتى نور فنان أي تعيش أي كلا
fursadihii u banaanaa ganacsadii soomaaliya ganacsatadii ay shaqaalihii soomaaliyeed fursadii ay lahaayeen dadkii dhalinyaradii soomaaliyeed oo la tababar lahaa inay hawsha qabtaan waxaan moodaa in waxaa qoran meesha ay ka baxayaan tan kale haddaan usoo noqotan diyaaradaha airlineska la soo dhibaata ayay ku jiri doonta sababtoo ah shirkad hadday timaado hasab waxa ugu horeeya waa oo shirkad ganacsi ay fiiriso waa profit ay faa'iido inay hesho faa'iidadaas ay ku heli lahayd wax walba ay u maran lahayd ay u maraysaa waxay ku kordhinaysaa gosha qalabka kayso waxay ku leedahay intaas oo lacagayaal investment ku sameeyey oo garoonkiian maalgashay horta waxa la yidhahdo rate of investment lacagtii aan garoonka gelishay waa inay isoo noqota markaas kabacdi ayagu horta faa'iido laga hadli karaa marka sidee lacagta kusoo noqonaysaa lacagtaas waxay kusoo noqonaysaa in service investment aan loo baahneen ayaa laga yaaba inay geliyaan lacagtaasna laga qaado dadkii soomaaliyeed arkaabka ahaa lacagtii lagu kordhiyo diyaaradihii lacagtii lagu kordhiyo again waxa kaloo jira meesha waxa ka maqan regulatory body ka maqan cid lagala tashay oo dadkii sharci yaqaanada ahaa dadkii oo maxay ahayd maxaan ku idhahdaa dowladdii lagalama tashanin sharciyadii oo civil aviationka oo CAA-ga u yiilay CAA-ga shaqadooda waxay tahay inay controlaan safety-ga inay controlaan maxay ahayd consumer protectionka inay controlaan waxa la yidhahdo economic regulation waxaasoo dhan ayaa horta waa mawduuc aad u badan oo aanan dhamayn karin marka kulle inta kale axmed oo ku daray maxamedow horta adayar waa soo gaabin lahaa marka haddii aan anigoo kale masalan haddii aan jaamiskaas heli lahaa oo shirkada SKA laga siiyey Soomaaliya haddii aan heli lahaa oo garoonka Muqdisho la yidhi lahaa kaligaa ayaa maamulaya because contract wuu noqonayaa in exclusive rights loo siiyey in cid kale oo faraa la soo geli karta aysan jirin taa waxaa ka dhalanaya waxaa la yidhaha monopoly power oo ah in waxay doonta kharashka noocaan doona aan charge gareeyo waxaan doonaa aan qiimaha kordhiyo hoosna aan u dhigo marka shirkadana kale markaa fiiriso shirkadaha caalamka waxaa laga qaybiyaa inay yihiin laba midood inay tahay shirkad faa'iido doona oo inta meel maal gashata faa'iido ka raadis iyo shirkadahan marka la isku duubo hoos yimaado shirkadaha waxyaabaha charity-ga iyo kuwaan dadka caawiya waxa hoos yimaado oo aan faa'iido doon kahayn marka shirkadii horta waa shirkad wax maal gashatay faa'iido raadisa